wasiirka cadaaladda ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay 120 arday oo ka mid ah maxaabiista jeelka Hargeysa kuwaasi oo dhameystay waxbarasho la xiriirta Qur'aanka Kariimka iyo diinta Islaamka. Maxaabiistan oo tiradoodu ay dhan tahay 120 maxbuus ayaa muddo 6 bilood ah qaadanayay casharo la xiriirta Qur'aanka Kariimka iyo diinta Islaamka. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ayaa door weyn ka qaadatay kor u qaadida aqoonta iyo waxbarashada maxaabiistan ku jirtay jeelka magaalada Hargeysa. Waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland oo ugu baaqay in ay sii wadaan waxbarashada dhinaca diinta. waxaan noqonaysaa qof laba garab haysto oo garab af Carabiga iyo diintii wuxuu ku baran lahaa iyo dalkiisa wuxuu ku tar lahaa luqadii kale baadiga ahayd oo baran lahaa. marka waxaan runtii idin dareensiinaynaa inaan jecelahay oo aatiin dadkaygi toosintan waxa horeysa luqadda barataan afka barataan maxaan ku tacliinta barataan waxyaalaha la baray kale ay ka mid tahay waxaan ku farsamada gacanta barataan si ay u ceeshtaan ummadana wax u tartaan. waxa u baahan tahay labada ruuxda idinku jirta tarbiyad u baahan tahay nafaqo jidhkuna wuxuu baahan yahay isaguna nafaqo labadiiba waa haystaan maanta ruuxdana muhiim ah way jidhka waxa hogaamiyaa ruuxda tana ka asala waxa uu heshay fursad qaali ah Ilaahay inuu waafajiyo subhanahu wa ta'ala inaydan luqadii afka diinta lagu baranaya Carabiga hida barataan iyo Qur'aankii waa miftaaxi aqoonta ruuxdana dhisay. ardaydan maxaabiista ah ee wax ku bartay jeelka magaalada Hargeysa ayaa u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay waxbarashadan. Riyadeeni way noo dhabowday maanta waxbaynu qornaa Soomaa innagana inaynu waxa ku amal falno inta ay xabsiga inoo horsan hadii Ilaahay qorano waa sii joogaynaa hadii kalena haddaynu fasaxna halka kitaabka ka wadano oo mashruucii hore aynu ku jirnay nin walba ka baxo. taliyaha ciidanka asluubta oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inay kordhinayaan kor u qaadista waxbarashada la xiriirta dhinaca jeelasha gudahooda. waxaan idinku dardaarmayaa inaad waxaad barateen waa diintii waa qowlka Ilaahay inaad halka ka sii wadaan oona joojin haddaad ka baxdaan iyo haddii aad intaad ku jirtaan baad sii wadataan. aad u mahadsan yihiin macallimiintii idinku soo tacabtay ee halka idin soo gaarsiisay. ugu dambeyn wasiirka cadaaladda ayaa isagu shahaadooyin guddoonsiiyay ardayda maxaabiista ah ee muddada 6 bilood ah waxbarashada la xiriirta diinta Islaamka ku qaadanayay jeelka magaalada Hargeysa gudihiisa.